shir qaatay 2 maalmood ayay ku lahaayeen golaha midowga murashixiinta madaxweynaha Soomaaliya magaalada Muqdisho kaas oo ugu arinsanayeen go'aankooda ku aadan habraaci doorashooyinka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran. Golaha midowga ayaa warmurtiyeed ka soo baxay maanta ku sheegay inay u taagan yihiin xaqiijinta sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho cadaalad ah, xor iyo xalaal ah taasoo leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay, taas oo horseedi karta xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hanaanka dawladnimada. Madaxdan shirtay ayaa sheegay in uu si adag ugu diidayo habraaci ka soo baxay golaha wadatashiga qaran kaas oo ku aadan doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si gaar ah qodobada la xiriira oday dhaqameedyada, magacaabista bulshada rayidka, xulista, xaqiijinta dabagalka iyo isdiiwaangelinta ergooyinka, kuwaas oo ay sheegeen in dhammaantooda gacanta loo geliyay madaxda dowlad goboleedyada dalka. Sidoo kale golahu wuxuu sheegay in muddo ah hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha waqtigiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku doonayay inuu doorashooyinka dalka ku boogo, iyagoo tilmaamay in hadda aysan suurtagal ahayn in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii Farmaajo laga diiday ay la yimaadaan. Golaha midowga musharaxiinta ayaa tibaaxay in dusha sare uu magac doorasho ka sito gudihiisana uu magacaabis yahay habraaci doorashooyinka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran, iyagoo ka digay cawaaqib xumo kasta oo ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto oo ay ka mid tahay. Golahu midowga musharaxiinta shirkooda oo ay ka soo saareen qodobada ay shirkooda ka soo saareen ayaa 7 qodob oo isugu jirta baaq iyo digniin, kuwaas oo ku aadan habraaci doorashada ay soo saareen golaha wadatashiga qaran.